السلام عليكم kusoo dhawaada damashaad media waynantiinii rayd oo maanta odayga wiina xataa kusoo qabatay halkan naga daawanaysaa waa damashaad media walaalayaalow damasha waxba uu kama aragnaa waxba ka khaldan marka waa xaqiina naga soo hagaaga waxaan maanta kusoo dhaweynaynaa odayga wiina meesha iska lahaa naasir dibilaawi soo dhawow aad baad u mahadsan tahay saxufiyadeena dhamaan marka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane iyo marweyn meel kastoo maqal iyo muuqaal kaliya ka soo gaariyo waa barnaamijkeena xiisaha lahaa oo in badan soo codsateen iyo saxufiyadeena inanta halay soo dhaweeyo aad iyo aad baan u salaaminaa okay maanta ana igu soo qabatay nolosha awal hore waxaad arki jirteen dad nolosha lagu hayo laakiin odaygiina lagu hayo nolosha Nasir Gibilaawi nolosha lagu hayo Nasir caawisa dareemaysa والله عاوز سؤال badan baa sugay halkan su'aalo badan baa ka sugay in badan waxa ku arkay adigoo heesaa jacaylka iyo waxyaabaha ka hadlaya jacaylka isku tii hada jacaylka isku fiican masha Allah gabadh ma jeclaatay ilaa hadda jacayl baa soo martay runtii weyn kala YouTube-ka jacaylkuna marna waa farxad marna dacar magrasa anigu labadii waa soo maray ma jeclaan lahayd run noo sheegay inaad gabadha u jeceshahay kulli magaca qalbi wax jecel hadana qofka inuu bad nawlisa waka jeclaan lahayd adigu inaad heshid gabadh baa kusoo duubtaa codad qisa jacayla gabadhaas halkaas iska garanayna soo fiidweyn halka baa ka salaamaya adoo run naftaad ka sheegay gabadha xakaa hamsantay horta su'aashaas in badan bari soo celceliyay dadka qaar waxa jira isoo weydiiya suusu maxaa ka dhaxaya suusu maxaa jira waa in badan baan amaana ma garanaysaa aan run gashay nafta horta suusu waa gabadhii ugu horeysay ka YouTube ahaan iskeeda isoo gaar istaagtay waana saxaafadii ugu horeysay ila timaada barnaamij maanta barnaamij ugu saameynta badan runtii waana qof igu qaaliya waxaa jira samaa qof ay nafta iska jeclaato oo isfahantaan misan istibaad fahantaan oo dadka dhan ka dhaweysta ana dadka aad ka dhaweystiin runtii aniga dadka ilama sina way iga dhowdahay marka waana saxufiyad reeda maashadna qadarin gaar u hayaan anna sidoo kale magalatay oo cid kasta iga rab taagan ma kala reebiyo ilaa adiga marka iga rab taagan wad ugu weyn tahay runtii sidoo kale anaga wad ugu weyn tahay maadaama in badan bad media ku dhex jirta si fiican ma jirta adiga runka sheegay gabadha media iska barateenood yani jacayl iyo horta gabadh intaan media iska baranay yani social media marka macal WhatsApp galiyadi marka horta way jiraan hablo badan oo WhatsApp iska baranay ana waa qoon isku lahayn hadana aan xiriir una dhex maray laakiin wali kama guuleysan waqti xaadir ku darest gabadh kastaan jeclaadana magana xiga carrayso waxa leeyahay gabdhow naxariistina hagee martay foga naxariista hala baaro ina kara loo baaro si fiican ina kara odhanay ka weyn okay Nasir su'aashan waxa ku oranaysaa Nasra in badan baa istaqaanaa aniga kor fadhiya si fiican maxaa digaa misantahay horta wallahi marka kaftanka laga saaro run baa sheegaysaa hada yara maalin xamatay igu dar waa ogahay runta iska sheeg horta wallahi marka xaqiiqan ka hadlo horta Nasr waxa tahay qof aad u wanaagsan inta aan bartay way qof kasta way waxa la dhimoogtay qofka waxa ku taqaanid bas laga sheega anu Nasr inta aad ku bartay waxaan ku bartay wanaag runtii waxa tahay gabar mar walba igu dhiirigelisay meel dheer in gaarsiiso jecel oo nafteedii aniga iga hormarisay marka runtii awaalkan waa awaal aan qalbiyan ku hayo qof wanaagsan waa tahay intuu والله أبوري أم بنت عن قفة عن برتي أنت عن قبل هيك بلا نصبرني واحد شخص اللي هو نفسه أنا صبرت أو أنت عاد كهلا يا أوكي هم كشيء حتى أنا متصل كسلام يا دي حتى أنا هذا كسلام أنا بس عادي أنا ما أفتيد واصل عن مو أنا كسلام يا زين هذا لسه قصة أشياء إنك ويدين على استعاوة رد ما شهد إن بدن بكتاودين إن بضح عليه بس اللي نصره نلك كلمة نلك dad badan baa yiri nalka bal hano macniso nalka bal macnay nalka wax u yaqaan dalaarkan baxaya ma garatay aan waxaan yiri nalka waa ubax soo baxaya waa gabar shidan waa gabadha kaliya gabdhaha eriyatay ma garatay marka nalko aniga saxaabtu taqaana soma intaan waa ala saxib yahay muu jira qof aniga inta saxaabta baratay leedahay qofkaas aniga saxaabta uu wanaagsano oo islaan karnaa
amba haato saxaab oo WhatsApp ku bari amba haato kuwan YouTube in garab taagan amba haato xataa kooxda Soomaal ba haato aan madaxda wahay muujaado qof shakhsiyan inta aniga aad igu daba baratay aad qof wanaagsan baa leeyahay amaanta ka daba bartay oon shakhsigaas ku jira ha bas isaga hadaba ku jira adigu shakhsi ma kulano okay horta magaca nalka badiidis sabtaan magaca nalka waa magacii ugu horeeyay TikTok soo galo صح والله ما أنت نكون قرية تيك توك واحد يوسف ما يسن حال قف لو حتى ما يصير تيك توك وان قالي إنه مجا حكوا قرطان نصرنا لك يعني مجا سي سو يقول صحادري سو دني مك هذا ده وجوه عن اسمه بالهواء أديت سير ده بيربان وجو قري مرة مجا نلك هديان نيجي رشاقو تجبر يرى اسكو قرح بدن وان هي اللي جرح ما شاء الله ما شاء الله إكمل مقطع إنك لكن هل من بكوش ليه ragga waxa jira quruxda qiimeeya ragga waxa jira aan qurux qiimeynay ay laakiin dabeecad qiimeeya iyo qalbiyan imika sayna shanteena far u saneeyay dadku sineen ayna sineen waxa arkaysa gabar qurux badan oo xurrayna laakiin wax ka siihin taas ay dabeecad haysan dabeecad ay bulshada kula dhaqanto amba haato xajkeeda amba haato dabeecad ay qofka ay la socoto ama bulshada saxaabtid la socoto ay gaar ay ka tahay waxa arkaysa gabar iska falxuno hadana laakiin ay gabar uu siiyay dabeecad iyo qalbi nadiif ah adiga runtii wallahi adiga intiiba ilaahay ku siiyay hadii tahay qurux hadii tahay dabeecad wanaagsan iyo tahay qalbi nadiif ah waxaan ku leeyahay rabbi raaliha ka hada akhriya dumba sidoo kale TikTok-geedi waa kan hostan soo dhigi doona comment-ga hore ku soo bin gareena TikTok-geeda hal booqdo halaga warhayo de inuu qurux badan ka sinkiiso arki markaas follow qurux badneeteeda kala farayo soo waana comment-ga u qortaan from Damashad Media si ay u ogaato inaad ka socoteen Damashad Media shakhsiga waxay noqotay asxaabtadan kala dhixbixila okay hal soo laade shakhsigaas uu faafaya amba la socod buu leeyahay والله هرت استحفظ ما شاء الله ونفسي هذه نقطة رقم يا هذه نقطة دمشق ميديا هان هذه نقطة وصاب كوجو حرن halka ma ka wada salaamay dhamaantood oo walaalaha ay isku duuban waa jeclay dhamaantood ma sha Allah laakiin de kulay dad badan oo haysan hay maanta nasriin dooranaysa kulay wadi ku darta waa si aad ah waxa male waxa le waa soo wada duubta adigu oo waxa tirtiin walaalaha sidoo dhan yihiin oo ni jeclay dhamaantiin laakiin halka shakhsiyan ka qaadan lahaa kulay horaba waa nuqaati sabaan horo qaadatay wiilkaas horo qaadatay magaciisana biinka hoos ku soo qorinay ku ogaada leenahay halkaas kala socda magaratay ma sha Allah wiil la socod le dhaqan yani qof dhaqasho le ma sha Allah qof falsadan karta noloshaada ku aamini kartaa oo taageero isagana hal tala idsiinaya aday maqlaya horta jacaylku ciyaar maaha wax arkaysa dadka qaar jacaylkii siyaabo qaldan adeegsanaya markuu ninka ogaadeen in gabadhi jeceshahay ayna ka maarmin siyaabo qaldan gabadhu isticmaalaya amba gabadhi waxa la qaldan la tagaya runtii inta aan qofkaan bartay runtii waa qof aad wanaagsan qofka sheegaysid waa qof wanaagsan waa qof anigaas nina adiga maanta kugu aamini karo waa maanta xataa gabar walaashaya runtii maanta walaashi waayo maanta seedi fiican bad walaasha u raadin kartaa sama maanta adiga naftaada waan ku aamini karaa qofku de hadhow wuxuu la iman alla oge taaduna waxa ku weyn wada dilin dadu sidelo magarto shaqo kala qaadan marka waxa leenahay isagana xaqas talaga sineli waxa tahay saaxiib jira waxa tahay walaal jira rabbi raaliha ka hada adiga qoyskaaga laakiin mar walba adduunka qofku caya wada hesha laakiin qofku jecel wadagta sida loo helo maanta dadku lacag ku xumeeyo isagoo qof bil xumeynaya aniga kula hadlaya nafsi badan ba soo galay hadda nafsi isla bil kadib baan aniga lagu sameeyay oo tan khiyaamay ma tuk kale aniga ii khiyaantay oo ilaa alaankan aan wali nabareedu biyala waxa leeyahay markaas jacaylka dacadaha loo hado dhalinyaro dayarta sabankan baa la hadlaya sida aniga dacad ugu ay inaguna dacad ugu hada waa in xaata magaciisa dadka dalbatan ani sheegay magaciisa wajisa dhaaf magaciisa telefoonkeeda shashadu yalla waa inta sigara هذا ما شاء الله أهم قرن إنه ما قاعد ليه هاي دعاد وتصفيا kala soco sida heesaa barnaamijyada iyo wax walba cusub kala soco kuna xidhno